بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. waxaan ku dhex jirnaa salafiyadii iyo su'aalihii aan iska weydiinay. Ikhwaani, hor salafiyada maanta khaas kuma dhulka muslimiinta ama dhulka carabta. Adduunku maxaa la lahaayay meel walba ay gaartay. Dhulkii reer galbeedka ay timid. mararka qaarkood waxaad u jeedaa inay dadka dhexdiisa firqo iyo problem iyo mashaakil iyo kala tegid ay keentay ayaa dhici karaysa. mararka qaarkood waxaad arkaysaa niman dhalinyaro oo aqoontiidu diimad aad u yar tahay oo maxaa la wax badan aan kala baxsanayn, haddana ummadii maxaa la daba taagan tabdiicin iyo inay tiraan mubtadic waay mubtadiciin waay ama tafsiiq oo maxaa la xataa muslimiintii cusbaa ee had islaamka soo galay naftooda lagu fidneeyo iyaguna xataa maxaa la wadadaasi ay galeen inay maxaa la ay ninkii iyaga maxaa la ama sheekooda khilaafa ay marka ay leeyihiin salafi maaha. marka si aan markaan u ishaarno waxyaalihii aan soo ishaarnay oo ahay su'aalihii faraha badnaa baan waxaan leenahay المراد بالسلفية هو الانتماء التام إلى عصر الرسالة والنبوة وزمن الصحابة والخلفاء وما تلاها من قول فضل التابعين ومتابعهم. سلفي وحلو لجدا سلفي وحلو لجدا إن الله نسبة الشيكتو وقت النبي عليه الصلاة والسلام أو نولا وقت الخلفاء الراشدين أي نولايين وقت الصحابة أي نولين يوحي الراعي قرونتي النبي عليه الصلاة والسلام وكشغي قرون تفضل بدن قرنين أم ثلاثة قرون عليه الصلاة والسلام ويلي وقرون تأم زمنك وقت أو فضل بدل. سلفي لماذا وحلو لجدا وفهم النصوص حسب ما نقل عنهم لأنهم شهدوا تنزيله وعاصروا التأويل. waxaa loo leeyahay salafinimadu in nusuusta diinta loo fahmo sidii nimanka ay u fahmeen, sababtoo ah iyagu waxay xaadir noqdeen markuu quraanka ay soo degaysay iyo sunnadu waxayna ay joogjoog u hayeen siduu nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ay u tafsiiriyeen. salafinimadu waxaa loola jeedaa الانتساب إليهم والاقتداء بهم والاقتداء بهديهم في جميع أمور الدين الأصلية والفرعية في أبواب التوحيد والتشريع والسلوك والأخلاق. وحلو لجدا إن من كان لغض يدو هنون كودي للراعو oo ku saabsan diinta abwaabkeeda dhammaanteeda asal ha noqoto ama farac ha noqoto, tawxiidka wixii ku tacalluqa, tashriica wixii ku tacalluqa, aadaabta iyo akhlaaqda wixii ku tacalluqa, wa fi lfiqhi walmucaamalaat حتى فقه معاملات وحي كتعلق والتعامل مع أهلي والجيران والأصدقاء والمجتمع إن محل الله سي ورق من جيران أهل كودا قرابة ودا مجتمع ودا والتعاضي في الشأن العام وإدارة الدولة وتزويع الثورات إن محل الله شأن عام كسيد الله الله ومدى دنت هذا دولة سيد الله ماموليو حولها سيد المسلمين الله وقيم العدالة مناسبة الدولة سيد الله تولينا iyo sida ummadaha kaleeto loola dhaqmayo marka uu dagaal jiro iyo marka ay maxaa lahayd nabadi ay taalo sida loola dhaqmayo. salafinimadu waxaa loola jeedaa bixubbil khayri lijamiici alkhalqi in ummadoo jaqali oo dhan khayr lala jeclaado, xataa kii aan muslim ahayn in lala jeclaado inuu ilaahay uu soo hanuuniyo ka muslimka warkiisa badaa والفرح بهدايتهم والحسن لغوايتهم إن لغو فرحوا مركو قف أرطو مسلمين إنو سو هنوني مركا أرطونين مسلمين خلدمي إناد محلا كتيرا يوتو والسعي لنفعهم ومساعدتهم إنو قفكو أصعدو إنو واحترو إنو كرم استاغو والرحمة للمسكين والعطف على اليتيم والمحتاج إن لو نحريص سلفنimadu waxa weeyaan in miskiinka loo naxariisto, maxal lahay aytaamka loo maxal lahay loo danqado, ninka muxtaajka gacanta loo taago, والتألم لآلامهم dhibka haysta maxal la murugoodo, والتفاني في إصلاحهم qofku isku dayo inuu dadka wanaajiyo maxal la khayrka u horkaco, والتلطف مع المعاصي والمذنب in maxal lahay qofka caasiga ah ee dambiga ku dhacay lala qiiroodo oo laga naxo, وتبشيره برحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء loogu bishaareeyo raxmada ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax walba u kaalin u maxal Allah waasic noqotay. والدعوة بالتي هي أحسن salafinimadu waxa weeyaan dadka in wadada ilaahay maxaa Allah loogu yeero tan ugu qiimaha badan. واجتناب الفضالة والغضة مع المدعوين in laga dheeraad adayg iyo hadal xumaan marka dadka diinta loogu yeerayo. ثم التواضع ولين الجانب
haddana muslimiinta loo tawaaduco aan la iska weyneynin waitihaamu nafsi qabla alaakhar naftaada inaad tuhunto intaad cid kale aan tuhinin wa islaaxuhaa qadra almustadaaci naftaada aada wanaajiso intaad awood u leedahay walbucdu can ilkibri walisticlaa'i watxaqir laga dheeraado isla weynaan iyo maxaa laha isqaadqaad oo dad kaletana la xaqiro wa cadami tatabuci calaa cawraati alaakhariina min gayri maslaxatin sharciya salafinimada waxaa weyaan dadka kale inaadan ceebtooda raadinin iyadoo meesha maslaxo sharciya oo diintu ay golaatay ay jirin marka salafinimadu saas ayaa ka mid a intaan mid kale ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.